xafsa maxamed luqmaan oo ah haweeney ganacsato 23 jir ah oo la afduubtay muddo 5 maalmood ah ayaa shaaca ka qaaday in saaxibteed ay ka mid ahayd afduubayaasha. waxa ay sheegtay xafsa cabdi haweeneyda la soo helay subaxnimadii maanta ee Kiiskii iyo tuhmano kale oo ahayd maskaxdii afduubka. dhowr afduub oo loo geystay gabdho ayaa la soo wariyay dhowrkii isbuuc ee la soo dhaafay. waxa ay ahayd saaxiibaday inkastoo aysan ahayn qof aan aad isugu dhownahay, laakiin iyada ayaa igu hogaamisay dabinka afduubka. waxa ay iga codsatay inaan u raaco kayoole oo ay ku yaalaan dukaanadeeda kale ayay tiri. baarayaasha dambiyada ayaa qabtay 2 eedaysano oo ay ku tilmaameen kuwii ugu muhiimsanaa ee ka dambeeyay afduubka iyo jirdilka loo geystay xafsa maxamed luqmaan. haweeneydani oo 23 jir ah oo ku ganacsi jirtay magaalada Kiiskii ee Nairobi ayaa la waayay June 15 2021 waxaana soo badbaadiyay booliska 5 maalmood kadib. Jackson Injagu oo 24 sano jir ah iyo xafsa cabdi oo 21 sano jir ah ayaa saaka laga qabtay Sayral View Log oo ku taala nawaaxiga deegaanka Kiiskii oo xalay ay ku hoydeen. baarayaasha ayaa yiri subaxnimadii maanta ma ahayn maalin nasiibkeedu hagaagsanaa. waxaa la soo qabtay qolka lambarka 8 ee ku yaala Kiiskii View Log. booliska ayaa sheegay in labadan qof ee isjeclaa ee soo abaabulay afduubka xafsa maxamed oo ka dhacay dukaankeeda la sheegay inay ku guuleysteen inay lacag dhan 6500 oo shilinka Kenya ah ay ka furtaan akoonada bangiga dhibanahaas intii ay afduubka u haysteen. nimanka sirdoonka ah ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in labadan qof ee maanta la qabtay xilli waagu bariyay kooxo qarsoodi ah oo ka socda xafiiska baarista iyo sirdoonka dambiyada ay qayb ka ahaayeen howlgalka qabashadooda. xafsa maxamed oo ku nool California State ee xaafadda Kiiskii ee magaalada Nairobi ayaa baarayaashu waxa ay ka heleen qol ku yaala Matubeni, halkaas oo lagu qasbay inay ku sii nagaato haanta biyaha ee miran. ka hor inta aan la waayin xafsa luqmaan, duubista kaamirooyinka ilaalada ee dukaankeeda ayaa muujiyay inay dukaanka soo gashay 4:44 PM talaadadii June 15 iyadoo ay la socoto xafsa cabdi. waxaana la arkayay iyada oo indhaha kala hadlaysa nin kale oo aan la aqoon ka hor inta aysan ka bixin dhismihii dukaanka. xafsa luqmaan ayaa sheegtay inay ku sugnayd goobteeda ganacsi ee caadiga ah California ee xaafadda Kiiskii markii ay xafsa cabdi u timid maalintaas kana codsatay inay u raacdo goob ganacsi oo ay ku leedahay kayoole. waxa ay ii sheegtay inay dukaan ku leedahay kayoole halkaas oo ay ku iibinaysay qaraha, laakiin marka aan tagnay ma jiraan wax aan ka ahayn dhul qashin badan oo ay iigeysay ayay tiri. markii dambe waxaa soo badbaadiyay saraakiil boolisa iyada oo xaalad wanaagsan ku sugan inkastoo la jirdilay. mid ka mid ah faraheeda ayaana sidoo kale la jaray. labada afduubayaasha ah waxa ay dalbadeen madax furasho dhan 5 milyan oo shilin si ay u sii daayaan xafsa maxamed. si kastaba ha noqotee intii aan madax furashada la bixin ayay tuhmanayaasha ogaadeen in boolisku ay ku daba jiraan, kolkaas ayayna doorteen inay cararaan. labada eedaysane ayaa maxkamad la soo taagi doona Isniintan berri ah. waan ku kalsoonaa iyada oo had iyo jeerna waan caawi jiray markay ii baahan tahay. kaliya waxaan rabaa in cadaaladdu ay shaqayso oo laga jaro wixii ay imariyeen. aad ayaan ugu faraxsanahay in la xiro ayay tiri xafsa oo hadashay. tan iyo markii la afduubtay xafsa maxamed luqmaan, dadka ku nool xaafadda Kiiskii ee magaalada Nairobi una badan dumarka Soomaaliyeed ayaa wajahaya cabsi weyn oo ku aadan afduubka ku soo batay magaaladaasi.